qisadani waa qiso aad iyo aad u cajiib ah run ahaantii oo rafaad iyo weliba duruuf adag ku xeeran yihiin waxayna dhex martay laba qof oo Soomaali ah oo ka dhaxaysa sheeko iyo weliba jacayl dhab ah sanado badan. labadani qof ayaa ahaa qaar isku jecel wadankooda hooyo, hase ahaatee waxayna ku heshiiyeen in ay u tahriibaan wadamada horumaray gaar ahaan Yurub, iyaga oo go'aan ku gaaray in ay maraan wadada dheer ee dhibaatada iyo weliba rafaadka hareeyay ee Liibiya. labadani qof ee jacaylka xooga ka dhaxeeyay dhibaatooyinka faraha badan oo argagax leh oo ay kala kulmeen jidka gaar ahaan Liibiya, waxayna qarka u gaareen dhimasho ay aakhiro u gaaraan ifkana kaga hayaamaan kasakow dhibta ay dhulka jeelka ee garaacida ahaydna waxayna kaga darneed safarkii ay badda ka dhex mareen oo ay mararka qaarkood la gaaray in ay si rasmi ah ugu quustaan guud ahaanba nolosha adduunka. Cabdinaasir waxa uu ahaa wiil aad u naxariis badan, dulqaad iyo weliba raganimo badan. Nasteexo waxay ahayd gabar aad u wanaagsan oo dabeecad Rabbi ugu deeqay iyo weliba kalsooni, karti, caqli badan Ilaahay siiyay, run ahaantii aadna u qurux badneed. Cabdinaasir iyo Nasteexo socdaalkooda dheeraadka ay ku beegsanayeen wadanka qadaad ee tahriibka lagu yimaado Talyaaniga iyo weliba Malta, iyada oo la sii marayo dalka cusuriyadda hareysay ee Liibiya iyo Suudaan. waxayna bilaabeen socdaalkoodii iyaga oo qaaday amba baxayna socodkeena ee bay nagu qaadin dhidin aamiin. waxayna si dhib leh Cabdinaasir iyo weliba Nasteexo ku dhaafeen wadanka Itoobiya, kadibna waxayna gaareen wadanka ugu wacan ugu naxariista badan ee dadka Soomaaliyeed dhaldoolka ah. runtii waa wadanka kaliya Nasteexo Soomaaliyeed ka dhabta tahay wadankaasi oo ah Suudaan. Cabdinaasir iyo Nasteexo marka ay gudbeen kaymaha iyo buuraha iyo ciidamada booliska labada wadan ka kooban yihiin, waxaa kaloo halkaasi jooga bahalo ay ka mid yihiin libaax, waraabaha, didaarka iyo weliba dadka cawaanka ah ee dadka si arxan daro ah u dila. marka la dhaafiyay dhibta badan oo lagu kulmo xuduudka kale ee u dhaxeeya labada wadan Suudaan iyo weliba Itoobiya, muddo 6 maalmood Cabdinaasir iyo weliba Nasteexo waxay ka soo baxeen subax barqo ah magaalada lagu magacaabo Boko oo ahaa magaalo ugu weyn ee magaalooyinka ee dhinaca xuduudda Itoobiya, balse aad ugu fog meelaha dadka laga qabto oo lagu celiyo Itoobiya si Itoobiya ugu celiyo Wajaale, halkaasna dadka badanna ku niyad jabaana marka lagu celiyo Wajaale. haddaba magaalooyin Dogobo ayaa ah magaalo hadaad gadho oo aamin tahay. Cabdinaasir iyo Nasteexo waxay ahaayeen qaar aanan marin laamiga, baabuurta marta iyo weliba dhulka banaan si aynu u arka askarta ilaaliya, balse markay halkaani soo gaareen waa ay xuroobeen oo waxa ay u soo baxeen laamiga si ay u joojiyaan baabuurta wadada maraysa kuna socoto Khartoum ee caasimada dalkaasi Suudaan. isla markaana markii ay in muddo lugeynayeen laamiga ayaa waxaa ka soo baxay 2 nin oo wata mootooyin CID-da ah. labada nin markii ay arkeen labada qof ay cidladani lugeynaysa waxay garteen inay yihiin Soomaalida dhalandhoolka ahayd, dibna way soo jalaaceen, dib ugu soo noqdeen, waxayna bilaabeen in ay la hadlaan. haddaba maxaa dhacay? la soco qaybta xigta ee qisadan.